السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودو برشاد حسابتا حلو والبا iyo goor walba magacaygu waa Shiine Gestir. daawade waxaan muuqaalkan kugu la wadaagayaa cashir ka mid ah xisaabta trigonometriga kaasoo ciwaankiisu yahay sine rule. Sine rule waa qaacido loo isticmaalo in lagu soo helo xaglaha iyo dhinacyada dhammaan saddex xaglada xaglahooda waxaa la siiyaa xarfaha waaweyn. waxaa lagu calaamadiyaa xarfaha waaweyn. xagashan waxaan u bixinay A weyn, xagashanna waxaan u bixinay B weyn, xagashanna waxaan u bixinay C weyn. haddaad rabtid xagashan waxaad u bixin kartaa A weyn, xagashanna waxaad u bixin kartaa C weyn, tanna waxaad u bixin kartaa tusaale ahaan B weyn. waa isdooba marin kartaa, dhib kama jiro. laakiin waxaa laga maarmaan ah inaad samayn kartid haddii aad xagashan u bixisay A weyn waa inaad dhinaca ka soo horjeeda xagashaas aad u bixisaa xarafka weyn oo yar. tusaale ahaan hadda xagashan waxaan u bixinay A weyn, waa inaad u bixisaa dhinacana A yar. xagashan waxaan u bixinay B weyn, waa inaad dhinaca ka soo horjeeda aad u bixisaa B yar. xagashan waxaad u bixisay C weyn, waa inaad dhinaca ka soo horjeeda aad u bixisaa C yar. haddii aad xagashan A weyn u bixiso dhinacan waxay noqonaysaa A yar. haddii aad xagashan B weyn u bixisid dhinacan waxay noqonaysaa B yar. haddii aad xagashan C weyn u bixisid dhinacan waxay noqonaysaa C yar. inaad intaa taqaanid waa laga maarmaan. haddaba dhinaca A oo loo qaybiyey sine xagasha A waa dhinacan A oo loo qaybiyey sine xagashan A waxay la mid tahay dhinacan B oo loo qaybiyey sine xagasha B. dhinacu B waa kan dhinacan B oo loo qaybiyey sine xagashan B. tan oo tan u qaybisid A oo u qaybisid sine A, jawaabta kaaga soo baxda waxay la eg tahay B oo loo qaybiyey sine B. waa isku jawaab. tan oo tan u qaybisid tan oo tan u qaybisid jawaabta kaaga soo baxda waa isla eg tahay. waxay kaloo la sii eg tahay dhinaca C oo loo qaybiyey sine C. iyagana jawaab isku mid ah ayaa kaaga soo baxaysa. haddaba waxaa laga maarmaana daawade oon rabaa inaan kula wadaago goorma ayaa la isticmaalaa qaacidada sine rule. intaas ayaan rabaa inaan kula wadaagay si fiican ii dhigo. haddii aad fahantid goorta la isticmaalayo qaacidada sine rule mar walba waxa weeyaan waad ka shaqeyn kartaa markii saddex xagal lagu soo agdhigo lagu yiraahdo soo hel xaglihiisa ama dhinacyadiisa. qaacidada sine rule waxaad isticmaalaysaa oo kali ah markii lagu siiyo tusaale ahaan xagal cabirkeeda. xagashan B baa lagu siiyey cabirkeeda. waxaa kaloo sidoo kale lagu siiyey xagasha B dhinaca ka soo horjeeda cabirkiisa. dhinaca B na waa lagu siiyey. markaasaa waxaa lagu siiyey oo lagugu daray dhinac ama xagal kale ama dhinacan mid ka mid ah lagu siiyey afartaa, tan 1 tan 2 tan 3 tan 4. afartaa mid ka mid ah ayaa lagu siiyey. markaasaa waxaa lagu dhihi tusaale ahaan waxaa lagu siiyey marka koowaad intii lagu siiyey xagasha B iyo dhinaca kasoo horjeeda lagu siiyey kasoo qaad waxaa lagu siiyey cabirka A. markaasaa lagu diray dhinaca C iyo xagasha C iyo dhinaca C iyo xagasha A. marka waxaad isticmaalaysaa markaad aragtid qaab noocaas ah waxaad isticmaalaysaa qaacidada loo yaqaano sine rule. aan ku celiyey mar labaad waxaan dhahay qaacidada sine rule waxaa la isticmaalaa markii lagu siiyo cabirka xagal iyo dhinaca ka soo horjeeda kadibna lagu siiyo afarta kale soo hadhay tan 1 tan 2 tan 3 tan 4. afartan soo hadhay kale mid ka mid ah lagu siiyo cabirkiisa. waxaa lagu siiyey kasoo qaad cabirka xagashan baa lagu siiyey. markaasaa lagugu diray inaad soo heshid cabirka xagashan iyo cabirka dhinacan iyo ama cabirka dhinacan. markaad aragtid su-aal noocaas ah
waxaad ku xalinaysaa sine rule qaacidadeeda. waxaan u gudagelinaa marka tusaalaha waxa lagu fahmayay daawade. tusaalaha waxaa la yiraahdaa raadi waxaa lagu yiraahdaa saddex xagalka ABC ee hoos kaaga muuqda ayaa xagashiisa A lagu siiyay 30 degree, xagashiisa B na waxaa lagu siiyay 50 degree, dhinaciisa B na waxaa lagu siiyay 4. raadi xagasha C, xagasha C, dhinaca C iyo dhinaca A. waa kana xagasha A waxaa lagu siiyay 30 degree, xagashan waa A. xagasha B na waxaa lagu siiyay 50 degree, xagashana waa B. dhinaciisa B na waxaa lagu siiyay 4, dhinaca marka waa B. hadda marka koowaad waxaad haysataa xagal iyo dhinaca ka soo horjeeda cabirkeeda. arrintaas fiirinaysa. marka taa fiirisid ayaa haddana waxaa lagu siiyay cabirka hal xagal. marka saa lagu diray inaad soo heshid xagasha C, dhinaca C iyo dhinaca A. markaasa waa inay maskaxdaada kusoo dhacdaa inaad isticmaashid qaacidada loo yaqaano sine rule ee dhahaysa dhinaca A oo loo qaybiyey sine xagasha A waxay la mid tahay dhinaca B oo loo qaybiyey sine xagasha B oo la simid ah dhinaca C oo loo qaybiyey sine xagasha C. markaad qaacidada soo qaadatid ayaa dhihi maxaan sameeyaa oo ku horeeyaa baad dhihi. markaasaad dhihi dhinaca B iyo xagashiisa B waan haystaa, dhinaca A waxaan haystaa xagashiisa A oo kasoo horjeeda. marka waxaan raadinaynaa A, waxaan isticmaalaynaa qaacidada qaybteeda hore. maadaamoon sine A aan garanayno inay tahay 30 degree, B na ay tahay 4, sine B na ay tahay 50 degree, marka aanan A garanayn. marka waa inaan isticmaalno qaacidada qaybteeda hore. marka waxaan dhahaynaa A loo qaybiyey sine A. sine A maxaan haysanaa? waxaan haysanaa 30 degree. marka waa inaad xasuustaa inaad qortid sine 30 degree waxay la mid tahay B loo qaybiyey sine B. B maxaa haysataa? B waxaad haysataa 4. markaasaad dhihi loo qaybiyey sine B. sine B na maxaa haysataa 50 degree. xagasha sine B waxaad haysataa 50 degree. markaad sida aad u isticmaashid qaacidadeeda si aad A usoo heshid waxaad dhahaysaa daawade dhan walba waxaad ku dhufataa dhan walba. waxaan u jeedaa marka halkaad joogtid ayaa waxaad dhahaysaa waxaan isugu dhufanayaa si isweydaarisa. jajabtan hore sareeyaheeda waxaad ku dhufataa jajabtan dambe hooseyaheeda. tan baad ku dhufani, tanna tan baad ku dhufan. marka waxaa la yidhaahdaa cross multiplication, isku dhufashada isweydaariska la yidhaahdaa. markaasa waxaad dhihi sine 50 degree lagu dhuftay A sine 50 degree lagu dhuftay A. eeda sideeda usoo qaado, isku dhaji. marka la isku dhufanayo xaraf iyo tiro waa la isku dhajiyaa on calaamada isku dhufashada lama muujiyo. waxay la mid tahay sine 30 degree lagu dhuftay 4 sine 30 degree lagu dhuftay 4. halkan markaad joogtid si aan usoo helno A oo ah tirada aan raadinayno ayaa tirada A lagu dhufanayo oo ah sine 50 degree ayaa waxaan u qaybinaynaa dhan walba. waxaan dhahaynaa dhinacan waxaan u qaybinaynaa sine 50 degree, dhinacana waxaan u qaybinaynaa sine 50 degree. markaas sine 50 degree oo halkan ah iyo sine 50 degree oo halkan ah waa isla go-ayaan. waxaa kaaga soo dhex baxaysa A keligeed. marka A waxay la mid tahay sine 30 degree lagu dhuftay 40 oo loo qaybiyey sine 50 degree. markaas waxaa A waxay la mid tahay sine 30 degree
lagu dhuftay 4 sin 30 degree lagu dhuftay 4 oo loo qaybiyay sin 50 degree oo loo qaybiyay sin 50 degree markaas aad dhihi ee waxay la mid tahay intan ayaad calculator-ka ku isticmaali calculator-keena soo qaad marka waxaan dhahaynaa sin 30 degree lagu dhuftay sin 30 degree lagu dhuftay 4 oo loo qaybiyay sin 50 degree waxay la mid tahay 2.6 hal eber oo waliga sii soconaysa marka waxaan soo qaadanaynaa 2.6 ayaan iska soo qaadanaynaa oo waan soo gaabsanaynaa tiradaas dheer marka waxaan dhahaynaa ee waxay la mid tahay 2.6 haddii uu unitkaada haystid uu yahay centimeter baad ku raacin hadduu yahay meter baad raacini hadduu yahay kilometer baad raacini taasi adiga ku jirta marka ee waxay la mid tahay 2.6 marka ee waan soo helnay oo waa 2.6 waan gartay maxay noo dhiman ee waan soo helnay waxay noo dhiman inaan soo helno xagasha c iyo dhinaca c marka labadan iska soo horjeeda ayaan raadinaynaa marka koobaad waxaan ku horeynaynaa xagasha iyada xagashu way fududahay maadaama aan garanayno saddex xagalada marka la isu geeyo dhammaantood xaglahooda inay la mid tahay 180 wadarta xaglaha saddex xagaladu waa 180 taas waan isla ognahay soo ma markaas waxaad dhihi 50 degree oo 10 ah lagu daray 30 degree oo kana oo lagu daray c waxay la mid tahay 180 degree markaas aad dhahdid baad dhihi 50 waxaa ku dartaa 30 waa 80 lagu daray c waxay la mid tahay 180 waan gartay markaad halkaa joogtid ayaa waxaad dhihi 80kan ayaa dhinacan ka jar dhinacan 80 ka jar dhinacaasna 80 ka jar waa isla agtiibad xalini marka 80kan iyo 80kan waa isla baxayaan marka waxaa kaaga soo baxday c inay la mid tahay waxaan iska tirtiraynaa si aan boos u soo helno markaas waxaan dhahaynaa waxay nooga soo dhex baxday c halkan c inoogu soo qor c marka inay la mid tahay 180 laga jaray 80 oo la mid ah 100 sidaa darteed xagasha c waxa weeyaan 100 marka xagashan waxay la mid tahay halkan aan ku qoranayna xagasha waxay la mid tahay 100 degree halkaas waxaa kusoo heshay xagashii waxay noo dhiman inaan soo helno dhinaca c waxaad isticmaali kartaa inaad dhahdid qaacidada qaybteedaasaan isticmaali karaa waxaad dhihi kartaa b loo qaybisaan b waxay la mid tahay c loo qaybisaan c haddaa rabtidna waxaad dhihi kartaa a loo qaybisaan a waxay la mid tahay c loo qaybisaan c haddaad isticmaashid tan iyo tan isla isticmaashid ama tan iyo tan isla isticmaashid isku jawaab soo helaysaa marka waxaan dhahaynaa dhinaca b ayaan isticmaalnaa dhinaca b iyo sin b waxay la mid tahay c loo qaybisaan c marka waxaan dhahaynaa b maxaan haysanaa b waxaan haysanaa 4 loo qaybiyay sin b maxaan haysanaa 50 degree waxay la mid tahay dhinaca c oo loo qaybiyay sin c oon haysano 100 degree so ilama socotid c le waxaan soo helnay 100 degree ha markaas waxaan sameynaynaa sidii markaan a soo helaynay aan sameynay waxaan isticmaalaynaa xisaabta loo yaqaano isku dhufashada isweydaariska ah
jajab weeyaan moogtahay 4 loo qaybiyey sin conton waa isla jajabtii marka jajabtan hore sareeyaheeda waxaad ku dhufataa jajabtan dambe hooseeyaheeda marka 4 loo dhuftay sin 100 ayaa dhahaysaa iyo sin conton lagu dhuftay dhinaca c marka waxaan ka horeynaa sin conton lagu dhuftay dhinaca c waxa dhigi sin conton degree lagu dhuftay dhinaca c waxay la mid tahay 4 lagu dhuftay sin 100 sin 100 halka markaad joogtid si aad u soo heshid c oo raadinaysid c tirada lagu dhufanayo ah sin conton ayaa dhan walba loo qaybiyaa waa isla agtii aad ku soo baratay kalaasyada hoose marka sin conton ayaa dhan walba u qaybinaysaa dhinacan u qaybi sin conton degree dhinacanna u qaybi sin conton degree marka halkaad joogtid sin contonkan degree iyo sin contonkan waa isla baxayaan waxaa kaaga soo dhex baxaysa c keligeed c inay la mid tahay 4 lagu dhuftay sin 100 4 lagu dhuftay sin 100 degree oo loo qaybiyey sin conton degree marka c waxay la mid tahay intaas ayaan calculatorkan isticmaalinaa marka jawaabteedna ayaan soo helinaa marka waxaan dhahaynaa 4 lagu dhuftay sin 4 lagu dhuftay sin 100 degree oo loo qaybiyey sin conton degree maxay la mid tahay 4 lagu dhuftay sin 100 degree oo loo qaybiyey sin conton degree waxay la mid tahay 5.1 marka waxaan soo qaadanaynaa 5 marka c waxay la mid tahay 5 marka dhinacanna waxaan soo helnay inuu la mid yahay la mid tahay 5 sidaas fudud ayaad u isticmaalaysaa qaacidada sin rule daawade waxaan u gudagelaynaa tusaalaha labaad waxaana la yiraahday soo hel dhinacyada adigoo isticmaalaya saddex xagalka hoos kaaga muuqda adigoo isticmaalaya sin rule waxaa lagu yiraahday soo hel dhinacyadan dhinacan iyo dhinacan soo hel adigoo isticmaalaya qaacidada sin rule waan gartay qaacidada sin rule waa ta dhahaysa dhinaca a oo loo qaybiyey sin a waxay la mid tahay dhinaca b oo loo qaybiyey sin xagasha b idana waxay la simid tahay dhinaca c oo loo qaybiyey sin xagasha c waan gartay horta saddex xagalkanna la siiyey xagashiisan waxaana la siiyey 65 degree xagashanna waxaana la siiyey 35 degree dhinacanna waxaana la siiyey 20 degree haddaba magacyadooda u bixi xagashan waxaad u bixisaa kasoo qaada xagashan a baan u bixinaynaa waan gartay xagashanna waxaan u bixinaynaa b xagashanna waxaan u bixinaynaa c waan gartay marka xagashan dhinaca ka soo horjeeda waa inaan u bixino a yar taasaa qasab nagu ah laakiin hadduu ilaah kuusa moogaleyahay xaglaha haddaa rabtid tan waxaa u bixin kartaa a tan waxaa u bixin kartaa c tan waxaa u bixin kartaa b laakiin haddaa dhinacan aad b u bixisid xagashan aad b u bixisid waa inaad dhinacaana b u bixisaa isma doomari karaan labada xaraf ee isleh waan gartay marka dhinacanna wuxuu noqonayaa 20kaan haysano b yar dhinacan xagasha c kasoo horjeedana wuxuu noqonayaa c wahagaag haddaba waxaan raadinaynaa dhinacan c iyo dhinacan a waan gartay waxaan ku horeynaynaa inaan soo helno sidoo kale xagashan horta xagashan aan haysano xagashan b waxaan ognahay saddex xagalkan xaglihiisa marka la isu geeyo inuu la mid tahay 180
marka waxaan dhahaynaa 65 halkan ku xisaabsanaa isagaan ku horeynaa 65 degree lagu daray 35 degree oo lagu daray b degree ma haysano waxay la mid tahay 180 waan gartay marka 65 lagu daray 35 waxay la mid tahay 100 waxay la mid tahay 100 marka haddii 100 lagu daray b waxay la mid tahay 180 degree markaas haddii b waxay la mid tahay halkan aan space samaysanay sug space yar fiican baan ku samaysanaa si aan u xalino aan u soo helno xagasha b wahagaag marka halkan dhinacan ayaa waxaad ka jari 100 dhinacana waxaad ka jari 100 100kan iyo 100kan waa isla baxayaan maxaa kuu saaray b kaligeed b marka waxay la mid tahay 180 laga jaray 100 marka b waxay la mid tahay 80 degree xagasha b waxaan soo helnay 80 degree halkaas horta naga hadhay xagasha b marka waxaan rabaa inaan soo helno dhinaca c iyo dhinaca a waxaan haysanaa xagasha b 80 iyo dhinaca ka soo horjeeda oo b ah 20 marka waxaan dhahaynaa waxaan ku horeynaynaa soo helno dhinaca a waxaan isticmaalnaa marka qaacidada qaybta hore qaybtaasaan isticmaalnaa maadaama a aan raadinayno oon haysano xagasha a cabirkeeda oo ah 65 degree iyo dhinaca b oon haysano 20 iyo dhinaca xagasha b oon haysano 80 degree oon soo helnay somada gar markaas maadaamaad haysatid labo iska soo horjeeda waxaad isticmaalaysaa xaaladan oo kale qaacidada sine rule okay dhinaca a ma garanayno oo loo qaybiyey xagasha sine a oo aan haysano 65 degree waxay la mid tahay dhinaca b oon haysano 20 oo loo qaybiyey xagasha b oon soo helnay markii dhaweyd 80 degree sine 80 degree markaasaad sidii aan soo sameynay aan sameynaynaa waxaan dhahaynaa waxaan isugu dhufanaynaa si isweydaarisa tan ayaan tan ku dhufanaynaa tanna taas ayaan ku dhufanaynaa markaasaan waxaan odhanaynaa sine 80 degree lagu dhuftay a waxay la mid tahay sine 65 degree 65 degree lagu dhuftay 20 markaasaad dhan walba waxaad u qaybini dhinaca aad raadinaysid dhan walba waxaad u qaybini dhinaca aad raadinaysid ama tirada aad raadinaysid tirada lagu dhufanayo marka inagu waxaan raadinaynaa a waxaa lagu dhufanayaa a sine 80 degree marka sine 80 degree ayaan dhan walba u qaybinaynaa dhinacan waxaan u qaybinaynaa sine 80 degree dhinacanna waxaan u qaybinaynaa sine 80 degree sine 80 degree iyo sine 80 degree waa isla baxayaan waxaa kaaga soo dhex baxaysa a kaligeed marka a waxay la mid tahay sine 65 degree lagu dhuftay 20 oo loo qaybiyey sine 80 degree intan marka ayaan calculatorka ku isticmaalinaa si aan usoo helno a marka a waxay la mid tahay sine 65 degree 65 degree lagu dhuftay 20 oo loo qaybiyey sine 80 degree waxay la mid tahay 18.4 marka waxaan soo qaadanaynaa 18 ee inay la mid tahay 18 waa hagaag waxaan soo helnay a
a waxaan ognahay inay tahay hadda 18 waxaynu dhimanaa soo helno dhinaca c dhinaca c haddaa rabtid waxaad isticmaali kartaa qaacidada qaybteedaas ama waxaad isticmaali kartaa a loo qaybiyo sin a oo la mid ah c loo qaybiyo sin c haddaad tan iyo tan isla isticmaashid ama tan iyo tan isla isticmaashid jawaabta kuu soo baxaysa waa isku mid waxaan dhahaynaa marka halkan aan ku xisaabsanaynaa waxaan qaadanaynaa kasoo qaad tan iyo waxaan isla isticmaalinaa tan a maxaan haysanaa a waxaan soo helnay 18 a waxaan soo helnay hadduu ilaah kuusan ogol yahay 18 loo qaybiyey sin a oon haysano 65 degree waxay la mid tahay dhinaca c oo loo qaybiyey sin c oon haysano 35 degree haddii aad dhahdid marka haddana halkan aan ku qornay dhinaca b maxaan haysanaa 20 loo qaybiyey sin b oon haysano 80 degree iyadana waxay la mid tahay c loo qaybiyey sin c oon haysano 35 degree tan iyo tan haddaa isticmaashid jawaabta kuusoo baxaysa waa isku mid marka aday kugu xiran tahay middaa isticmaalaysid haddaa rabtid tan isticmaal haddaa rabtidna tan isticmaal marka waxaan isticmaalaynaa tanaa koobaad tanna adiga ku hubi jawaabtan soo helay inay jawaab saxa tahay tan adiga waxaa u isticmaashaa hubin jawaabta aan soo helno c inay sax tahay waan gartay marka waxaan dhahay waxaan isticmaalaynaa marka koobaad isku dhufashada isweydaariska ayaan isticmaalinaa tan ayaan tan ku dhufanaa tanna tan ayaan ku dhufanaa marka waxaan dhahaynaa sin 65 lagu dhuftay c sin 65 degree lagu dhuftay c waxay la mid tahay 18 lagu dhuftay sin 35 18 lagu dhuftay sin 35 degree waad kala hormarin kartaa haddaa rabtid waxaad dhihi kartaa sin 35 lagu dhuftay 18 maadaama ay isku dhufashada ay waxba ka bedelin jawaabta aad soo heli doonta ama wadarta aad soo heli doontid waxba kama bedesho halka markaad joogtid dhan walba waxaad u qaybisaa tirada aan raadinaysa c tirada lagu dhufanaya ee dhahaysa sin 65 taasaad dhinac walba u qaybini marka dhinacan waxaan u qaybinaynaa sin 65 degree marka dhinacaad u qaybisay sin 65 degree waa inaad dhinacan aad u qaybisaa sin 65 degree sin 65 degree iyo sin 65 degree waa isla baxayaan marka waxay noo soo baxaysaa c inay la mid tahay halkan aan ku qoranaa c inay la mid tahay 18 lagu dhuftay sin 35 degree loo qaybiyey sin 65 degree markaa c waxay la mid tahay waxaan isticmaalinaa calculatorkeena c waxay la mid tahay 18 lagu dhuftay sin 35 degree oo loo qaybiyey sin 65 mar walba waa inaad xasuusataa inaad sin isticmaashaa haddaad sin ilowdid xisaabtu way kaa khaldamaysaa marka intaas waxay la mid tahay 11.3 marka waxaan soo qaadanaynaa tiradaas 11 ka ah tirooyinka 10 waan iska reebaynaa 10 laha marka waxaan dhahaynaa c waxay la mid tahay 11 waxaan isticmaalnay qaacidada ta hore iyo waxaan isticmaalnay ta dambe ku hubi jawaabtan inay sax tahay qaybtan ku hubi adiga tan ku hubi oo inaad isticmaashid 20 loo qaybiyey sin 80 degree
meesha aan ka isticmaalnay 18 loo qaybiyey sin 65 waxay la mid tahay c loo qaybiyey sin 35 marka inaad soo heshid 11.1 iyo wax tirooyin far badan oo sii soconay weligood. waxaan rajeynayaa muuqaalkan gaaban inuu ka anfacay sida loo isticmaalo qaacida loo yaqaano sin rule oo ka mid ah xisaabta trigonometriga oo runtii aad iyo aad muhiim u ah. waxaan kaloo rajeynayaa inaad fahantay goorta la isticmaalo qaacidada sin rule. waxaan hadda aan xooga saarnay sida loo soo helo dhinacyada. waxaan muuqaal ku xiga ku baran doonaa sida loo soo helo xaglaha adoo haysta dhinacyada oo aan isticmaalino qaacidada sin rule.